qaadiga ayaa gabadhii u yeeray wuxuuna ku yidhi gabadh yahay dadkii waa ay ku inkireen laakiin diyaar ma u tahay in aan garsoore ka dhiga makhluuq aan carab lahayn oo gurigiinna ku nool gabadhii ayaa tidhi haa waan ku qanacsanahay qaadiga ayaa amar ku bixiyey habeen midow gabadhan hal la geeyo guriga ay ninka kula dhaqmi jirtay haddii eyga guriga jooga uu qayliyo oo uu arko qof cusub gabadha ayaa been sheegaysaa laakiin haddii uu eyga soo dhaweeya gabadha waa run sheeg ninkuna waa khiyaanalow xilli habeen ah askartu waxay gabadhii geeyeen gurigii markii ay yidhida ka gashay eyga guriga waardiyaha ka ahaa ma uusan qaylinin taas beddelkeeda waxa uu u orday xaggeeda isagoo faraxsan isagoo aqoonsaday gacantii quudin jirtay si shaki kasta meesha looga saaro waxaa guriga la geliyey gabar kale oo aan weligeed arag eygii ayaa markiiba xanaaqay qayliyey iskuna dayay inuu weeraro eygii ayaa sidaas horta u kala cadeeyey oo waxa uu noqday markhaati fura xujadii adkeed ee qaadiga hor taallay intaas kadib